Cabdullaahi Gaafo Maxamuud taliyaha laanta socdaalka ee jinsiyadda Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay safaro ku tagay dalka Mareykanka iyo wadamo kale. Wuxuu sheegay in Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington laga hirgeliyay baasaboorka Soomaaliya, dowladda Mareykankuna ay si buuxda u aqoonsatay baasaboorka. wuxuu sheegay in shacabka Mareykanka ku nool ay si fudud ku helayaan adeegyada baasaboorka. Safar dheer oo aan soo sameynay oo ku saabsanay horumarkii hogaanka hay'adda socdaalka jinsiyaddu ay ka gaartay waxaana la marti qaaday dowladda Mareykanka marti qaaday waxaan ka soo hadlaynay waxay ahayd baasaboorkii Soomaaliyeed shaqadiisii iyo waxyaabihii looga baahnay iyo hogaanka socdaalka jinsiyadda sida ay dowladda Mareykanka ay tababarana u sii lahayd horumarkaas oo baasaboorkaas u gaar hay'addaas u gaartana ay gacan nooga sii laayeen. sidoo kale waxaan soo maray Denmark Copenhagen oo ayagana marti qaaday sidoo kale waxaan ka soo hadalnay baasaboorka Soomaaliga iyo hay'addan waxay sameynayso ballanqaadkii aan sameyn 2006 oo ahaa inaan baasaboorkaas gaarsiin doono meel walba oo Soomaaliya kamid oo nabada amba safaarad walba oo dalka ka furan. safaaradda hadda ugu dambeysay ee Mareykanka laga furay ee Soomaaliyeed ayaan baasaboorka ka soo furnay. Taliya Gaafo ayaa dhanka kala sheegay inuu ku xun yahay in baasaboorka Soomaaliya lagu dhibaateeyo qaadashadiisa shacabka Somaliland. wuxuuna ka hadlay warqad codsi ah oo ku saabsan in xafiis baasaboor laga furo magaalada Hargeysa, taasi oo ka timid xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cali Warcade. halkii aniga waxaan ku hayaa warqad oo qoray wasiir Cali Warcade. warqadda hadda akhriyo waxay leedahay codsi furitaan xafiis. markaan arkay codsiga uu soo qortay xafiiska Safari Travel Agency, markaan arkay baahida shacabka Somaliland, markaan arkay sida ay lagama maarmaan u tahay in uu shacabku helo baasaboor Soomaaliyeed, markaan arkay in xafiiska codsiga soo qortay uu qaban karo hawsha, waxaan idinka codsanayaa inaad noo ogolaataan furitaanka xafiiska socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed. inkasta ay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed, haddana shacabku kama maarmi karo helitaanka baasaboorka Soomaaliyeed. ninka sidaas qoraya waa ku yaqsoona inuu yiraahdo wali aniga waxaan isleeyahay wali anaga wax baan reebaynaa. cali marka ma fiicno aflagaadada dadka in aflagaadeeyo. Soomaaliland horumaray gaartay, waxbay samaysatay, anaga lagama yaabo wax ay horumarkii gaartay inaan ku faraxno maahane inaan yaqsi iyo waa ka faarnaa iyo wax u yaq inaan dhahno waa walaalahayn. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Home Cable TV, magaalada Muqdisho.